baarlamaanka waddanka Sweden ayaa qalinka ku duugay oo ansixiyay laga bilaabo hadda wixii ka dambeeya in carruurta da'doodu 14 sano jirada ay mutaysan karaan ciqaabta teeda adag marka ay galaan dambiyo culus sida kuwa kufsiga, dilka iyo sidoo kale adeegsiga hubka noocyadiisa kala duwan. Arrintan ayaa markii baarlamaanka la geeyo oo waayadan muran badan ay ka taagneed waxa uu codeeyay 281 xildhibaan kuwa oo taageeray in 14 jirada ay muteystaan ciqaabta teeda ugu adag oo xabsi daa'im iyo sidoo kale ciqaabo ka sii adag haddii ay geystaan dambiyada culus. 66 xildhibaan ayaa ka soo horjeestay oo diiday qaraarkan, wuxuuna sidaa ansax ugu noqday waddanka Sweden. Hadda wixii ka dambeeyana carruurtu da'doodu ay tahay 14 jirada waxa ay muteysan doonaan ciqaabta la mid ah midda ay muteystaan dadka waaweyn. Norway oo daris la ah Sweden ayaa ilaa iyo hadda carruurta ay 15 jirada da'doodu tahay ayaa mutaysan karaa ciqaabaha tooda adag oo la mid ah midka dadka waaweyn haddii ay geystaan dambiyada culus ee kufsiga, dilka, dhaca iyo sidoo kale ka ganacsiga daroogada noocyadooda kala duwan. Xukuumadda waddanka Sweden ayaa in muddo ah arrintan waday, waxa ayna in muddo ah u ololeynaysaa in carruurta 13 jirada lagu xukumo loona adeegsado xukunada kuwooda ugu adag marka ay timaado dambiyada waaweyn. Ha yeeshee muran badan oo ka dhashay baarlamaanka ayaa kalifay in markii dambe laga dhigo da'da carruurta 14 jirada, taasoo ay xukuumaddu ogolaatay baarlamaankuna uu codeeyay markii dambena cod aqlabiyad leh uu ku ansixiyay. Dambiyada kala duwan ee ay geystaan carruurta ayaa ku sii badanaya waddanka Sweden, waxaana aad u adeegsanaya kooxaha kala duwan ee maafiyada kuwa oo dambiyo culus in ay galaan carruurta ku kalifo iyagoo siinayo lacago, waxaana ka mid ah dambiyada ay geystaan dilka, kufsiga, dhaca, ka ganacsiga daroogada iyo dambiye kasii culus oo ah in ay hubka noocyadiisa kala duwan kala gudbiyaan. Dad badan ayaa ku dhaliilaya go'aankan ah in 14 jirada ay muteystaan ciqaab la mid ah midka dadka waaweyn. Ha yeeshee xukuumadda iyo dadka taageersan in go'aankani la ansixiyo ayaa iyagu ku doodayo in ay yaraan doonto faldambiyada ay geystaan carruurta 14 jirada. Hindisa sharciyeedkan ayaa waxa uu soo jiitay indhaha dad badan, waxayna arrintani u muuqataa in Sweden ay markaan si adag uga soo horjeedo dambiyada loo adeegsanayo carruurtan. Ha yeeshee dad badan ayaa iyaguna ku doodayo in ay suurtagal tahay kooxahan dambiyada culus u adeegsada carruurta in ay hadda wixii ka dambeeyo adeegsadaan carruurta ay da'doodu ka hooseyso 13 jirada si ay danahooda ugu fuliyaan, markaasoo iyaduna laga yaabo in ay dowladdu qasab ku noqoto in da'da carruurta ay hoos u sii dhigto ilaa da'da ugu yar ee faldambiyad geysan karta ay muteysato xukun adag. Wadamada Yurub gaar ahaan Scandinavian-ka oo ay Sweden ugu horeyso ayaa si aada uga cabanayo dhibaatooyinka ay adeegsanayaan kooxahan maafiyada ah kuwa oo dambiyada culus u adeegsada carruurta aadka u yaryar maadaama xukunno adag aanan hore loogu xukumi jirin. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.